waxaan ku soo gudbinayaa cawada barnaamij la dhahayo ma jeceshahay in Allah subhanahu wa ta'ala uu ka xaram yeelo naarta. qofkii ay tahay jawaabtiisa haa ayaan u soo gudbinayaa si ilaahay uu kaaga xarimo naarta. waxaana iskamana dhahayiye suubanaha ayaa inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كسو دوادا شيخ ريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar eebaweyne waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhira janno leh inuu ina sii dhamaanteena آمين آمين آمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. أحبتي في الله، waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid cawada sheekhi afar indhood luu noqday maxaa waaye ayaa laga yaabaa inaad isweydiisid, laakiin xarago uma aanan qaadanin insha allah biidn illaahi alkariim. xoogaa hindhaha ayaa xanuun ka jira, sidaas darteeda insha allah waxaan idinka codsanaya inaad ii soo duceysaan inuu caafimaad taama ilaahay uu isiiyo biidn illaahi alkariim. intaas waa iga codsi. waxaan ku soo gudbinayaa cawada barnaamij la dhahayo ma jeceshahay in Allah subhanahu wa ta'ala uu ka xaram yeelo naarta. qofkii ay tahay jawaabtiisa haa ayaan u soo gudbinayaa si ilaahay uu kaaga xarimo naarta. waxaana iskamana dhahayiye suubanaha ayaa inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتن إله سبحانه وتعالى أوليه. أحبتي في الله، ما دام برنامج كان كوسو قد بنايو برنامج قالي ويهي وحنا ذين قعد سنايا إن ملكست أتكفها في سان سيدي عددين إهت أديشان تيك توك يدا أدجلسان واتساب يدا فيسبوك يدا waad u fasaxantihiin meel kasto waad geen kartaan. maxaa yeelay addaal cala alkhayri ka faacili ayaad qaadanaysaan. sheertana ku qabta, laygtana sidii kii habeen hore oo kale shanta barnaamij aan uga hadlayay laygta sidii roobka aad ka soo yeesheen oo kale kanna uga yeela biidn illaahi alkariim. barnaamijkeena ayaan gudagalayaa. hadduu ku anfaco fadlan oo nagu cusub tahay subscribe noo saara channelkeena, like-tana sidii roobka inooga yeela. barnaamijka ayaan gudagalaynaa. waxaan kuu soo gudbinayaa barnaamijkeena wuxuu yahay cawad aan kuu soo gudbinayo. ma doonaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala uu naarta kaa xaram yeelo ayaad iga sugaysay. camalkan yar ayaad samaynaysaa, kabacdi ilaahayna naarta ayuu kaa xaram yeelayaa. waa camal aad iyo aad u yar laakiin macno weyn xumbaarsan ayaan kuu soo gudbinayaa. camalkaasina waxa uu yahay salaada duhur markii la aadimo intaan la aqimin 4 rakacadood ayaad tukanaysaa. 2 rakac iyo 2 rakac ayaad u tukanaysaa. 2 rakac ayaad u tukanaysaa. duhurkaaga ayaad tukanaysaa, rag ahaw ama dumar ahaw. haddii rag aad tahay masaajidka gey salaada duhur, haddii dumar aad tahayna gurigaaga ku tuko salaada duhur. markaad tukatid salaada duhur haddana 4 rakacood kale ayaad ku xijinaysaa oo sunno ah. 2 rakac iyo 2 rakac ayaadna u tukanaysaa. kabacdi ilaahay waxa uu ka xaram yeelayaa naarta. miyaan iska leeyahay? maya.
suubanaha ayaa inoo sheegay. xadiiskaasi waxaa warinaysa ummi xabiiba zawjaati الnabiy ummahaati اlmu'miniin ka mid ah ayaana warinaysa. waxayna leedahay sidatan, dhegtaadana fur. qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam, man xaafada calىa 4 rakacaatin qabla الظuhr. ma ujeedaa? qofkii xifdiya 4 rakacadood salaada duhur ka hor, allahu akbar, wa 4 bacdaha, 4 rakacadoodna salaada duhur kadib tukada. haye waa warkii aan sheegayay. maxaa natiijada ay tahay? la soco. xaramahu اllahu calى الnaar. ilaahay wuxuu ka xarim yeelayaa naarta. ilaahay in uu naar uu geliyo dhan waa ka xaaraam yeelayaa. rawaahu abu daawuud والترمذي وقال حديث حسن صحيح. waa xadiiskaas walaashayda muslimadda ah, walaalkayga muslimka ah, salaada duhur ka hor 4 rakac tuko oo sunno ah, salaada duhur ka bacdina 4 rakac tuko oo sunno ah, ka bacdiba jirkaaga ilaahay naar ma taabsiinayo. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan qalday naf iyo shaydaan, ilaahay naga dhaafo. waxaan hagaajiyey fa min allah, ilaahay naga ajar siiyo. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.